midaysay maahino xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa kulmiyo bulshadu kama maarantee kaafiye ahaw waryaaraheen dadweynihii ka soo qayb galay markii la yidhi kaalinta koowaad idaacad ahaan kulmiyaa kow gashay hal mar ayay wada istaageen farxad darteed waxayna qireen markhaatina ka noqdeen inay garabeeshin aan lagu siin ee idaacaddaasi mudnayd in la siiyo sharaf iyo karaamadaas war xafladdaas muqdisho awaar markay shahaadooyinka bixinaysay waxay u wakiilatay inuu guddoonsiiyo reediyo kulmiye caalimka Soomaaliyeed Sheekh Cali Wajiis wuxuuna yiri markaan tartanka idaacadaha maqlay ayay qalbigayga ku soo dhacday reediyo kulmiya ku guulaysan doona wayna ii rumowday iyadoo la jirin koox amaan urura kaalmaynin warar lagu kalsoon yahay midii koonka naga siisay oo aan kilbiye beel qoso kulmiya ma kulmiya kulama jiro kaamana jiro warkayeenan kulama jirto kaamana jirto waaye war haddaan cidna la jirin cidna ka jirin xaggay jirtaa aryaadhaha raadiyihii kulmiyo kulligood shacabkeennu ku kalsooni qabeen oo sheekadii kalamaan ka baxayso miya ku soo boodi okaa waryaaraheen shacabka Soomaaliyeed waxay lahaayeen kulmiye raadiyo kulmiye adaa kuma yaal dhacda ah wixii koonkan ka dhacay kobtay ka dhacday dhacdada wararka nagu kaafiye kulmiye raadiyo kulmiye war maxaad kulmiye kaliya u sheegaysaan xalay waxa la abaal mariyay ganacsadaha u yar Muqdisho waa mahadsan yihiin Muqdisho weed haddaysan kuwa badarka badan heesta aysan bilad ugu derin wariyow way qaldaraayeen Muqdisho weerkana sheegaysaa nin qada haysta ayaa qada loogu daraa warnimada warka naga dhaxgelinay wiilku horta waa 12 jir liida ayuu ku miisaamaa dadka culeyskooda aryaadhaha hilibka dadka ma ka mushtaraaxo ka miisaama war wiilku waa wiil cajaa'ib ah wuxuu leeyahay iska socon isla soco 12 jir fakarkaas iyo eragaas ba keenay bilad waa mudan yahay aryaada wiilkii hal abuurka fiican la yimid oo kaaraha sameeyay Muqdisho aweed maxay bilad u sii weysay mise kaaraha ka cabsadeen war ma haysiin xildhibaankii la yiri waa 30 milyan haysta Abdullaahi Maxamed Nuur xisbigii Xasan Sheekh ee midowga nabadda iyo horumarka waa ka baxay mucaaradkii uu cadcadayna uu ka tanasulay saacadaha soo socdana waxaa la filayaa nabad iyo nolol inuu ku biiro war dardaarankii goodax bare miyuu qaatay booskiisii mucaaradnimada waxaan u malaynayaa inuu geli doono xildhibaan Daahir Amiin Jasow sababtoo ah wuxuu lahaa maalin dhaweeyay miisaaniyaddan aan sixinay maxaa lagu qabtaa maalintii ka sii horeysana wuxuu lahaa guddiga dhaxaya lacag la xaday been ay sheegayaan marna wuxuu dhahay dhaxdhaxaad beenuna war afkiisa iyo dhagihiisu miyaan ismaqlayn war waxa la yiri geel jira geel waa wada jira waana kala jira waxa kale la yiri sida gaari raadkii wax yahay gees walba u jeeda war may kale leeray loo jir banka kulanti banka shal tabtiya leeri war aadan isaaqow aflagaadadu sheekada nooga mid ma ahayn war ninkan aadan isaaq ma ahna waa mid isaaq war waxaad sheegaysid ma ahna waa ibrow eberow ilaa ay hadda wali waxaad ku jirtaan aflagaadada iyo caydi waryaada xan fireesha ayaa idin hayaa aqalka sare wuxuu bedeli rabaa goliya shacabka maanta waa isku yimideen waxaan la sugayay inay miisaaniyadda ka doodaan oo ansixiyaan hadda way iska kala tageen war aqalka sare in miisaaniyadda wax kule ma dhici karto warnimayo waxaan la yaabanahay saraakiishii hay'adda nabad sugidda haadgeed waa ay naqdeen maqaayadii aad soo fadhiisato waxaad arkaysaa afarku ag fadhida oo baagamuunda ah boolis lagama dhigin nabad sugidiina maaha bajetkayni waa la qaataa ayay dhaheen meelna kuma tirsanin waroy nabad sugidi baagamuunda meel ma fadhisee shaqadeeda sidaa yay ku gaadin oo aqaldami wariyaa nin baahan xanta lagama qarsadaa leeyahay marka niman mushaarkoodii waayo ilmihii ka baahan yihiin oo gurigii ka warwaraya maxay ka gaadayaan maxay wax gaadan cidnaba ma shaqeeyaan waryaarahan waa iska tawaawacaysiine Soomaaliland cirna ma joogto dhul ma joogto kadib berbera aan imaaraadka ku wareejinay hay'adii DBWOL waxay yiraahdeen waan ka guuraynaa oo waxaan aadaynaa Asmara iyo Eritrea iyo waxaan aan garanayn marka waxaan u malaynayaa in qoladan aan jaarka nahay ay taa ka dambeysay marka ilmaha iyaga caanahoodii khatar buu ku jiraa ee Soomaaliland war waxa la yiri nimayo in kasto rasaas la isku rido oo rag lagu laayo kama raysta aadmigu inay run isu sheegaan
aroor kasta xal baa jira yaa ku yidhi beenay kuu sheeg yaa run sheegaa idaacadda kulmiya abaalmarinta ku mutaysataa lagu yidhi warnimayahow been waa ku soo daallayay dhegaysta ra'yigii fayow baa bulshooy dhaliya raandiise inkastoyna raafjiidayaan raxan shisheeyaahu inkastoy riskeenna la rabaan rarankii yaahuuda oy hoos inoo riixayaan waa la roon yahay rajo qarannimaa muuqatayo nabad ya reerayne qof walbow ka qabo reer dhismaha rara iyow geline beeniraad ma leh beeniraad ma leh dhiilalawrun ma moodee biis markaaraw mar labaad noogu soo celi heestaa suudaaniga wareedhaha baadiyo roob waa ka da'ay laakiin aryaaliyaa sanbab nooga dhacay war danba ay run sheegteen ragnimo ma waayin miyaadan maqal aryaadaha ninkaan heestaw qaado waa qaldaneeda waxay ahayd buufisraad ma leh arbuufisraad ma leh ee tahriib run ma mooday allow liibiya ka gudubnaa waryaa ari wax kama taqaaniin dhegaysta ree carabeed magaaliyo haddaad raxan idaa dooni waa inaad rugaad leedihiyo raas u gadataa warnimayow guddoomiyii degmada yaakshiid ayaan dhoweed waa tii layidhi musuqaa lu helo shaqada waa laga joojiyey xalay haddana war kalaa soo baxo xilkiyaaba laga qaadaa layidhi marka maxkamaduna kuma xukumin waxaa lagu eedeeyey marka guddoomiyaha dembigu ma ku caddaada mise isagaa la nacay war dogonka kunow ulmalang iyo jeella giilman waayta lankiya nacbantana qatalman waayto leere warnimada waxaan maqli jiray musuq maasuq jooga gible iyo ciyaari horaa loo sheegay musuq maasuq Soomaali waa meheradeedii ma wax kala ninka lagu sheegay laba waxaan su'aalayaa musuq iyo maasuq labada nool la yiraahdo waa laba mas'uuliin magac dheer waa beeshay horta war ilma adeero lamadaasay qaado iyo inay gariyo war qof aan maxkamad ku cadayn dambiye lama dhihi karo sharci waa ka baxsan tahay in lagu tiro ama laga tiro waa sharci boowe xubnihii baarlamaanka ee Puntland waa la dhaariyay haye ma ununka hadda naloo dhaaraa haddana war xubnaha baarlamaanka Puntland waa 66 xildhibaan 40 musharax aan rabaa inay kala doortaan hadda nimankaas shaqo u taala shaqo adijaabkoodu waa buuxsama way ka wataan baraada waqtigooda waa raaxaystaan warnimayo hore loo yiri musharaxnimo hore madaxweynenimo dambe leedahay array ilaahay ha ku xamdiyaan dad aan shaqaba haysanina baawe Puntland waa hooyadii federaalka war adeero Soomaaliland federaalkiina ka mid maaha galmudug aan ka baqayaa inay federaalka ka baxdo war caawa ciyaalka magaalada waxay sheegeen bandhig faneediyo la qabanayo kuwa qabanayana falaashay jaafka ku wataan hal habo heeso kuma jiro afka u nuxnuuxinaya kaliya marka luqaawan haddaad rabto waa gooni laakiin hamood in lagu heesayo war ma falaash bila fanaan ba maya waa qof isnuuxnuuxinay iyo cajalad daaran waryaara ninkii wax bartay wuxuu yaqaanaa inuu jiraan kacaankii warshadaha haddana waxaan ku jiraa kacaankii kumbuyuutarka ee dadka hala yaabina kacaankan kumbuyuutarka qof walba heeska kooxaan dhisamiya maysiin lahaa gobolka say sheegasan korkana dhiing dhatana dhiing dhiin ma wal kale lika dheefaw ma jarta war horta biladiyaa guddoomay kulmiye rakisa tafasaya gadoomi war agaasimaha ka khudbeeya meesha war burhaana xafladda jooga saacan farmaaha war injineerku wiinadi alxaaji marwaan mayo husaan yeleere aryaadhaha xaaji iyo rakisa meel ma wada galane naga hortaga waryaada war waddankiina u fakara ha murminine waryaa isilgaamo waryaa aryaa dantaada gaara ha moogaan waryaada kulmiya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato